بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan u mahadcelinayaa shacabka reer Puntland. waxaan u mahadcelinayaa haday ismu noqoto, haday noqoto siyaasiyiin, haday noqoto dawlad, haday noqoto dhammaan maanta la isku duuban yahay oo Ilaahay mahadiis oo cadawga la wada midaysan yahay. waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa shacabka reer Puntland iyo gabdhaha ciidanka u garab taagan yihiin. dadku sida dareenkooda soo jeedo, siday u kacsan yihiin maanta, sidaan awal u weynay iyadoo shalay aan ogeyn wax dadku inay ka gaban jireen inay qawaariista wax ka sheegaan, sidii banaanada maanta u taagan yihiin, dhiigga u shooyaan, shacabku ciidanka u garab taagan yihiin, ayagu uga horeeyaan wax kastoo halganka shacabku ugu horeeyo. waxaan mahadcelinayaa shacabkaas reer Puntland. ciidamadu waxay wax ku yihiin waa shacabkaas isku duuban ee maanta guryaha ugu daadanaya khawaarijta. magaalooyinka waxaa laga sheegay amnigooda inay shacabka guryaha ugu daadanayeen, qofkii ka shakiyay ayagu soo qabanayeen oo laamaha amniga u keenayay. uga mahadcelinayaa shacabka reer Puntland isku duubnidooda. uga mahadcelinayaa sida haday noqoto ismo siyaasiyiin wax garab maanta sida la isugu duuban yahay. intaasaa guusha nooga dhiman, markastoo la isku duubnaadana dadka waa guulaystaa insha Allah. kuwaani waa dabar go'een meesha hadda anigu uga soo tagay halaadi baa haray dad sii taagnaanaya ama sii jiray ma harin, waxyar baa harsanaa. insha Allah halaadigaasna ciidanka soo afjarayaan. Puntland guulaysataan leeyahay, Soomaaliya guulaysataan leeyahay. isku duubnida wax lagu gaaraa shacabkan waxaan leeyahay dal iyo dibadba la isku duubnaado. jaaliyadaha waxaan leeyahay hal garab istaaga dawladdiina reer Puntland, garab istaaga dadkiina, garab istaaga. maanta waa maalintii la ku baxsan jiray weeye. annagu og awoodda dawladdu meesha ay marayso iyo sida ay ku baahan tahay intaba inay maanta garab istaagtaan dawladdiina dal iyo dibadba. shacabka reer Puntland isku duubnaadaan leeyahay, dadka Soomaaliyeedna waxaa laga guulaystay.